السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي وأهلا سلامي وحن ربا إنان إدين soo koobo sheeko yar oo aan ugu magac daray sideedii carruurta rajada iyo agoonta ahaa oon ayaan dhawatay beejkayga ku faafiyay laakiin dad badan oo akhriyay ayaa fahmi waayay sababta loo fahmi waayayna haddan gadaal ka fahmay waxaan isku xiray carruur joogta magaalada Cabudwaaq oo agoon ah iyo carruur ila joogi jirta halkan oo iyagana magaalada Dooxa wadanka Qatar iyo sheekadii oo ku dhamaatay Khartoum iyo Suudaan marka haddaan soo xiraya insha Allah anigoon video ku dheereynin waxaan rabaa qof ka soo carruur u joogto oo bari ka walwal qaba haddii uu dhintay carruurtiisa siday noqon doonaano inuu sheekada dhageysto ayaan rajaynayaa qisadu waxay ahayd walaalayaal horta sheekadan sheekan ku keenay ayaan dhawtaa waxa la ii soo diray ilma 8 ah oo hooyadood hadda ay sii mootan tahay taqriiban 2 isbuuc aabahood wuxuu dhintay 2018kii ayuu dhintay markii ilmaha baadiye joogan baadiye laga soo qaaday magaalada Cabudwaaq la keenay dadka muslimiinta loo soo bandhigay marka dadku waxa ka gurmanay ayaan kamid ahaa intaan ciyaalka qisadooda aan ku mashquulsanaa arintooda ku mashquulsan ayaa waxaan soo xasuustay qisa halkan ka dhacday marka qisadu waxay ahayd waxa jirnay Suudaani oo meel ka wada shaqeynay ilaaha uu naxariiso ninkaas wuxuu ahaa nin muxaami ama lawyer ayuu ahaa aabihiis ayaa u diiday inuu lawyernimo ku shaqeeyo marka wuxuu nala soo galay wasaaradda arrimaha diinta qaybta markaska dadka ku soo muslimaan ayaan aniga asaga wada shaqeyn jirnay dadka diinta soo galay saad ogtihiin dad badan oo waxay u badan yihiin dad masaakiin oo u baahan had iyo jeer in la kaalmeeyo marka Caadil Cabdulbaaqi wuxuu ahaa dadka khidmadiisa waxay shaqadiisa markaas ku hay waxay ahayd dadka soo muslimay inuu u khidmeeyo sababtoo ah dadka soo muslimay qaar baa xabsi ku soo muslimay qaar baa iyagoo kafiilkooda iyo waxay qoorta isku jiraan ku soo muslimay qaar baa iyagoo ay qaamada ka dhacsanta yaani shaqooyin had iyo jeer u baahan booliis iyo maxkamad ayaa ay ku soo muslimaan marka waxa la yiraahdaa inuu Caadil adiga hawshan la wareeg hawshan marka waa hawl oo 24 hours ah marka waqti ma laha anaga shaqada waxaan galnaa xilli wax ka baxnaa لكن isaga shaqo ma laha anytime la soo waca hadii maxkamad laga soo wacay hadii booliis laga soo wacay hadii airport laga soo wacaba waa in uu diyaar noqdaa howlahaas ay aad u dhameyn jiray runtii marka qadiyo aad raacdo waxyaabo uu qaban jirayna markuu hawl soo dhamay aad baad u farxaysaa المهم ninkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qadaray inuu maalmaha kamid ah telefoon ugu yimid wadankiisii Suudaan oo la yiraahdo ayayda ayaa dhimatay marka ayaydi Suudaan inuu ka qayb galo maxaa la oran jiray tacsiid inuu aado dhaqanka Suudaanta qof yaqaano waxa weeyo ma aha telefoon la isugu tacsiid qofku waa ina u tagtid dhaqankooda ayay kamid tahay marka halkaas wax yar baadin soo kala dhaafay ninka marka meesha aan ka wada shaqeynay noloshiis aad iyo aad bay u adagkeed marka deymo badan waa lagu lahaa ayadoo saas tahay ayuu maalmaha kamid yimid ka soo aadano niyo wadankan gaari laan lama socon karo gaari ma rabo inaan bangi ka soo qaatay kaalayo iyo waqa yani bangi markaad wax ka soo qaadanayso qof kale oo waxa la rabaa hadhow hadaad bixin wayso la weydiyo ayaa loo baahan yahay markaas soo aadano qof kale ayaan u baahanahay ana iska bixin laakiin kaan adigu iyo waqa bis wana waxa kornay mas'uuliyad ma qaad karo ma iga war ma caadi waaniyo wasraacnay dhaas ku qabtay oo soo waqacay gaari lan kuusoo soo qaatay asagana laysan ma lahayn nin kale oo darawal soo qaatay oo Hindiya oo soo kaxistay gaarigii asaga ah ayuu wuxuu ku kaxeeystay carruurtiisi iyo xaaskiisi iyo darawalkii Hindiga ahaa waxay aadeen wadanka Suudaan waxay sii mareen Makka oo ku cumreysteen markii Suudaan la gaaray ayaa Hindiga gaariga waday iyo ilmihii yareeraa way daalanayeen way daateen guriga meel guriga ku dhaceen yarkii Caadil ahaa iyo xaaskiisa iyo dumaashidiis iyo seedigiis ayaa gaariga wada qaatay Ilaahay wuxuu qadaray markay wax yar socdaan bashil gaari bay galeen qofna kama badbaadin shantoodii meesha ku dhinteen Caadil xaaskiisi dumaashidiis iyo seedigiis afartii meesha ku dhinteen waxa uu badbaaday Hindigii iyo carruurtii arintii arrin murugo leh noqotay aad baa looga naxay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu u naxariistaan u duceynay waxa kale oo qaban karna malaha ani markii waa iska hilmaamay gaarigan inuu ugu qoran yahayba waa iska hilmaamay maalinta dama fariin baab ay soo dhacday waxa la gaarigii aad kafiilka ka ahayd
aqsaadkii installment la lacagtan bilbil soo loo bixi laba bilood maadan bixin lacag soo sho markaasaan anigu madax u wareer inna lillahi wa inna ilayhi war magaariga caadil baa kugu qorna wax aan sameeyaan garan waay hadaan bixin waa in xabsi weeyaa la soco nin kala Suudaani oo iiga dhawaabaan waxaan ku orniyo maxaa sameeyay gaarigii caadil deyntii baa liigu leeyahay maxaan sameeyaa markaasuu aadan arintaas war fiican baan kaaga isug maxaa dhacay wuxuu yiri wax alla wixii deyn lagu leeyahay caadil iyo caruurtooda kafaaladiisa hal nin baa la wareegay laga bilaabo maanta bangiga ku soo wici maayo ninkii baan wacaya hadduu bangiga u tagayaa inay lacagtaasi asaga laga xisaabtamayo ayaa loo sheegaya mar dambana risaalo lagu fariin lagu soo diray maysaa la soco neef weyn baa iga soo gutay walaalyaal caruurta caadil xagee wadmay marka caadil saacadan aan la hadlayo ciyaalkii horta ayadood baa u nool ayadood baa ayaa u hartay marka inta kale inta ayadood u hartay waxaa dhacday ciyaalkii iskuul in laga geeyay wadanka Suudaan 3 guri baa loo dhisay inta soo gaari oo shaqaysan waa loo sameeyay iskuulaadna waa la geeyay saacada in la hadlay 3 kamid ah jaamacadda ay dhameeyeen kii u yaraan hadda secondary ka baxaya wuxuu ii sheegay ninkii saaxiibka ahaa account-gii wali waa furan yahay account-gii lacagta loogu soo ridayay wali sida u furan yahay waana buuxa cid waxa ku ridana lama yaqaan marka waxa igu soo dhacday marka meesha u socday halka ay ahayd ilmaha 8 ah ee rajada ee magaalada Cabud Waaq jooga ee aabood hooyada dhinteen ma laga yaabaa nin anaga naga mid ah inuu la wareego oo ilmahaasi aabahood iyo hooyada ka bacdi ay nolol fiican arkaan si lamada sida caruurtii caadil ku dhacday وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ما laga yaabaa nin anaga naga mid ah inuu la wareego oo ilmahaasi aabahood iyo hooyada ka bacdi ay nolol fiican arkaan si lamada sida caruurtii caadil ku dhacday. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.